Haweeney da' ah oo 92 jir ah oo diinta Islaamka qaadatay kadib markii ay aragtay arrimo badan oo farxad geliyay. وأشهد أن محمدا رسول الله. walaal si aan u guda galno qisada haweeneydan keentay inay islaamto like saar shana gareer nasuuna follow gareer si muuqaalkan saaxiibo badan u gaaro annagana ay dhiirigelin inoogu noqoto mahadsanidin badan. Haweeneydan da'da ah isla markaana horey u haysatay diinta Kirishtaanka oo gaal ahayd ayaa waxa ay qaadatay diinteena suuban ee saxda ah ee Islaamka. Haweeneydan lagu magacaabo Georgette haatanna la baxday Nuuru Islaam oo u dhalatay dalka Belgium oo ka mid ah wadamada Yurub ayaa waxa in ay islaamto qayb weyn ka qaadatay isla markaana Islaamka inay qaadato u bandhigay reer daris la ahaa oo fahansiiyay in diinta Islaamku ay tahay diin nasteexa ah. Haweeneydan diinta Islaamka qaadatay ayaa reerkan dariska la ahaa waxay daris la ahayd muddo ka badan 50 sano. Markii ay aragtay in aysan kaligeed noolaan karin ayay qoyskan si toos ah ugu biirtay oo nolosheeda kafaalo qaaday aabaha qoyskan ay la nooshahay oo lagu magacaabo Maxamed iyo xaaskiisa waxay leeyihiin wiil iyo 2 gabdhood oo Georgette ama Nuuru Islaam la nool noloshooda oo dhan. Georgette ayaa waxa ay bilowday in ay barato diinta Islaamka waxa ayna tukataa 5 salaadood ee waajibka ah iyadoo mararka qaar jamaacada salaada la tukato qoyska ay haatan la nooshahay. Waxa ayna Nuuru Islaam sheegtay in markii hore loo soo bandhigay diinta Islaamka inay qaadato oo ay islaamto balse ay muddo baaraysay diinta Islaamka iyo waxa ay tahay markii dambena uu Alle ku guuleeyay in diinta Islaamka ay qaadato. Haweeneydan ayaa sheegtay in gabarteeda oo ay dhashay ay kaga tagtay guriga isla markaana aysan dib ugu soo noqon soona xiriirin balse ay xanaaneeyeen naxariis badanna ay ka heshay qoyskan Islaamka ah oo hadda la nooshahay kuna qanacsan tahay diinta Islaamka ay qaadatay iyo reerkan haatan ay la nooshahay. Sidoo kale Georgette ama Nuuru Islaam oo hadda la baxday Nuuru Islaam waxa ay sheegtay in marka qoyska Maxamed ay la nooshahay ay la booqatay mar isla markaana ay dalxiis u tageen Morocco oo ay aragtay bishii Ramadaan dad badan oo Islaam ah oo bishii Ramadaan baahan ama sooman isla markaana ay baahidaas ku qanacsan yihiin isla markaana is saacidayaan. Arrintaasna ay la yaab weyn ku noqotay sida ay sheegtay markii ay Morocco ka timidna ama ay dib ugu laabatay dalka Belgium-ka ay qaadatay diinta Islaamka taasi oo masjid ku yaala magaalada Brussels ay shahaadada lagu qabtay.